biyo, dhulka, dab, hawada. Ayeeyaday ayaa iiga sheekaysay sheekooyin ku saabsan waayihii hore. Wakhti nabadeed, markii Avatarku uu ilaalinayay nabadda ka dhaxaysa qabaylka biyaha, boqortooyada dhulka, qaranka dabka, iyo reer guuraaga hawada. Laakiin taasi waxay dhammaan isbeddeshay markii qaranka dabdemiska ay weerareen. Keliya Avatarka ayaa joojin kara qaranka dabdemiska ee naxariis darrada ah. Laakiin markii dunidu ay isaga ugu baahnayd, wuu lumay. 100 sano ayaa ka soo wareegtay, qarankii dabdemiskana wuxuu ku dhow yahay inuu guul ka gaaro dagaalka. 2 sano ka hor, aabbahay iyo ragga qabiilkaygu waxay u socdaaleen boqortooyada dhulka si ay uga caawiyaan la dagaalanka qaranka dabka. Anaga iyo walaalkay oo aan qabiilkeena ilaalino. Dadka qaar ayaa aaminsan in Avatar uu weligiis dhintay. Laakiin ma lumin rajo. Weli waxaan aaminsanahay in si uun Avatarku u soo noqon doono si uu u badbaadiyo adduunka.